muxuu Mikel Arteta ka yiri xasuuqii kooxdiisa u geysatay Atletico Madrid. Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay qaab ciyaareedkii kooxdiisa ku soo bandhigtay guushii weynayd ee 4-0 ay kaga badiyeen Atletico Madrid kulankii Champions League ee xalay. Dabcan aad ayaan ugu faraxsanahay uguna faanayaa bandhigii iyo natiijadii aan ka helnay. Koox aad u fiican ayuu Arteta ka sheegay shirkii jiraa'id kadib ciyaarta. Markaan falanqeynay Atletico Madrid, waxaan u arkayay koox aad u adkaysi badan oo si fiican u abaabulan. Waxaan ogaa inay adkaan doonto inaan garaacno. Waxayna u baahneed weerar, dulqaad iyo xakamayn. Qaabka ay u maareeyeen xaaladaha ciyaarta iyo sida ay u bedeli karaan dhaqankooda waa wax cajiib ah. Inkastoo ay ahayd eber qaybta hore, annaga oo abuurnay 2 ilaa 3 fursadood oo waaweyn. Waa inaan sii haynaa dulqaadka isla markaana xoogaa kor u qaadnaa weerarka si aan u dhaawacno kooxaha naga hor imaanaya. Arsenal ayaa ku dhalisay 4 gool 14 daqiiqo gudaheed qaybtii labaad. Waxaana shabaqa soo taabtay Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli iyo 2 gool oo uu dhaliyay Victor Gyökeres. Door wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad dunida ka joogtaan waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan. Warbixintana waxay qayb ka tahay barnaamijkeena bandhigga ciyaaraha oo aan maanta ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka la soo gaartay ay ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.